السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشدة شرفت مدن إكو حرن شنك مان مال سودوادا وحلقة تطبعات اتحناها كون هبين يهبين هدي اي تهمركي كواد يا شنكن صوب وقنزو فضلا سبسكرايب كتابر لايك تنسار كمبرر كنا دارو سي اكوسو غاران مقالة يد عصبي أنيقنا ايديتي جريني قو نغطو إيمي كنا داو شوان habeenkii sagaalaad ayaa la gaaray Shahrazadna sheekadii ayay sii waday iyada oo tiri kadib ayuu boqorkii markay ka codsatay inuu u soo dhawaado si ay gacanta uga dhunkato ayuu ku yiri soo dhawow markay soo dhawaatayna seeftii hoosta ugu jirtay inta uu la soo baxay ayuu wadnaha ka galiyay seeftiina dhabarka ayay ka baxday markuu dilay gabadhii ayuu boqorkii qubadii ka soo baxay waxaana ka hor yimi wiilkii boqorka ahaa oo aad u faraxsan halkii ayuu boqorkii ugu mahad celiyay waxa uu weydiiyay ma boqortooyadaadii ayaad ku noqonaysaa mise halkan aad ila joogaysaa boqorkii weynaa waxa uu yiri waxaan ka soo tagay ciidankayga oo meel cidla ah jooga marka waa inaan si degdeg ah ugu laabtaa wiilkii waxa uu boqorkii weydiiyay imisa ayaad u malaynaysaa inaad boqortooyadaadu inoo jirto wuxuu boqorkii ku jawaabay 2 ilaa 3 maalin kama badna markaas ayuu dhoolo cadeeyay wiilkii boqorka ahaa isaga oo ku yiri boqorkii weynaa magaalada aad ii sheegtay waxa inoo jirtaa oo aynu u soconaynaa muddo bilooyin ah sababta aynu sidan isugu soo dhawaanayna waa sixirka uun ee halkan nala joog in muddo ah waxaana ku ballan qaadayaa inaan magaalada si nabdoon kugu gaarsiiyo kadib boqorkii weynaa in muddo ah ayuu wiilkii boqorka ahaa la sii joogay muddo markuu la joogay ayaa la go'aansaday in boqorka la gelbiyo oo la geeyo boqortooyadiisii sidii ayayna isku raaceen labadii boqor iyo askartoodii waxay jidka ku soo jiraan muddo bilooyin ahba kadib waxa ay yimaadeen halkii ay joogeen ciidankii boqorkii weynaa oo siday boqorka u sugayeen qaati billaahi taagna si fiican ayaa labadii boqor loo soo dhaweeyay wasiirkiina waxa looga warramay sheekadii ka dambeysay afartii kalluun ee kala nooca ahaa iyo barkadii biyaha ahayd kadibna waxa loo wacay odaygii kalluumaysatada ahaa ee sababta u noqday in magaalada oo dhan sixirka laga qaado waxaana la weydiiyay xaalkiisa iyo inuu carruur leeyahay waxa uu sheegay inuu xaaskiisa iyo 2 gabdhood oo uu dhalay uu la nool yahay markaas ayaa gabdhihii mid ka mid ah loo guuriyay wiilkii boqorka ahaa halka gabadhii kalena uu guursaday boqorkii weynaa sidaas ayuu odaygii miskiinka ahaa ee kalluumaysatada ahaa sodon ugu noqday 2 boqor oo ka mid ahaa boqoradii ugu waaweynaa adduunka waqtigaas markii ay dhamaysay sheekadaas Shahrazad ayay tiri waxaase ka yaab badan sheekadii xamaaliga iyo gabadhii markaas ayuu boqorkii yiri oo maxay ahayd sheekadaasina Shahrazad waxa ay tiri xamaaligu waxa uu ahaa wiil dhalinyar ah muuqaal dabiici ah oo bilcsan leh laakiin wuxuu ahaa wiil iska danyar ah oo aan waxba haysanin wuxuuna ku noolaa magaalada Baghdad sidaas darteed nolol maalmeedkiisa wuxuu ka dhacsan jiray xooggiisa oo wuxuu ahaa xamaali dadka suuqa u soo adeeg doonta alaabta u qaada maalintii dambe ayaa waxa dhacday isagoo aan wax shaqo ah haynin oo suuqa iska dhex jooga kuna sintaacsan gaarigii uu alaabta ku qaadi jiray ayaa waxa soo kor istaagtay gabadhaas oo ku labisneed dhar xariir ka samaysan aadna u asturan wajiguna uu u dednaa inta indhashareerkii wajiga u saarnaa iska qaaday ayay ku tiri soo qaada gaarigaaga oo soo raac markaas ayuu wiilkii kor madaxa u qaaday balse wuxuu arkay gabadhaad u qurux badan oo indho madow leh tilmaan kasta oo qurux lagu sheegana leh xamaaligii waxa uu soo kaxiyay gaarigiisii wuuna soo daba kacay ilaa ay ka timid dukaan albaab weyn leh waxayna dukaanlihii siisay 2 diinaar iyadoo ka soo qaadatay xogaa zaytuun ah waxayna u dhiibtay xamaaligii kadib waxay u tagtay nin midhaha faakihada ah iibiya waxayna ka soo iibsatay nooc kasta oo midho ah waxayna u dhiibtay xamaaligii waxay u tagtay kawaanlihii waxayna ka soo iibsatay 10 rodol oo hilib ah waxayna u dhiibtay xamaaligii kadib waxay u tagtay nin cadarla ah waxayna ka soo iibsatay shamac iyo nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha la isku carfiyo markaas ayuu xamaaligii yidhi wallahi haddaan ogaan lahaa inaad suuqa wax yaalaba aad iibsanaysid waxa soo kaxaysan lahaa baqashaydii gabadhii inta ay dhoola cadaysay ayay ku tiri isoo raac kadibna waxay u tagtay nin iibiya raashinka iyo cuntooyinka iyada oo dhowr nooc oo raashin ah ka soo iibsatay siday u soo waday ninkii xamaalka ahaa waxa ay keentay guri aad u qurux badan aadna loo sharaxay muuqaalkiisa korana ku soo jiidanayo albaabkii ayay u garaacday si tartiib ah isagoo isla markiiba furmay sidii inuu albaabka qof sii taagnaa oo la sugayay waxa uu fiiriyay qofkii albaabka ka furay mise waxa uu arkay gabadh aad u da'yar shaf yar oo taaganna leh waxayna lahayd indho u eeg indhaha deerada dhabano shuban sunniyo la moodo bil hadda dhalatay san dhooban af yar oo aad u qurux badan weji u ifaya sidii dayaxa oo kale calool yar iyo dhex aad u dhooban markuu wiilkii xamaaliga ahaa arkay gabadha quruxdii adduunkaba kulansatay ayuu ku sigtay inuu alaabtii uu waday ay ka daadato waxa uuna yidhi cimrigayga inta aan noolaa maan arkin maalin maanta ka barka badan kolkaas ayay gabadhii labaad ee albaabka furtay tiri soo dhawaada guriga ayuu sii dhex galay isagoo alaabtii wada kadibna waxaa loo sii gudbiyey qayb sidii hoolka u samaysan waxaana dhex taallay sariir lagu xardhay go' ka samaysan xariir aad u qurux badan waxaana sariirta ku fadhiday gabadh iyaduna aad u qurux badan oo leh indho buluug ah iyo joog aan caadi ahayn una qurux badan sidii meerayaasha ifa iyo xidigaha habeenkii gabadhii sariirta ku fadhiday inta ay soo istaagtay ayay soo socotay xogaa ilaa ay ka timi hoolka dhexdiisa
markaas ayay tiri maxaad u istaajiseen xamaalkan miskiinka ah alaabta ka dejiya labadii gabdhood ee kale ayaa ka caawiyay inuu alaabta dejiyo markii xamaalgii alaabtii laga dejiyey ayay siiyeen 2 diinaar waxayna ku yidhaaheen waad fasaxan tahay wiilkii markuu arkay hantida gabdhahaasi ay haystaan iyo guriga quruxda badan ee ay ku nool yihiin iyo sida ay kaligood u nool yihiin ee aan wax nin ahiba la joogin ayuu aad ula yaabay isagoo aan weli bixin kanacaga jiidaya inuu baxo ay gabdhihii ku yiraahdeen maxaa kugu dhacay oo bixi laadahay mise lacagta kula yaraatay waxaanay u soo taageen 2 diinaar oo kale wallahi lacagta aad siisan ilama yaraanine laakiin qalbigayga ayaa ku mashquulay xaalkiina waxaana la yaab igu ah inaad idinkoo sidan oo dhan u quruxda badan aan wax nin ah idinla noolayn waan ogtihiin guri kasta wuxuu ku tiirsan yahay tiir kaas oo ah ninka guriga aan tiir lahayna wuxuu qarka u saaran yahay inuu daqiiqad kasta dumo dumarkuna nasiibkoodu waxa uu noqdaa mid dhammaystiran markay nin helaan gabadha aan nin haysanina nasiib ma laha idinku waxaad tihiin 3 dumara waxaanad u baahan tihiin nin idin afareeya kaas oo ah nin caqli badan geesi ah hadday dantu keentana idin difaaci kara markaas ayay ku yidhaaheen annagu gabdho ayaanu naha waxaanu ka cabsannaa in sirahayga qof kale ogaado waana dhibaato in sirtaada la ogaado sidii hore loo yidhi qofkii sirtiisa dayacaa naftiisa wuu dayacay waxa uu ugu jawaabay aniga xamaal keliyaha ay maalinina waxaan ahay nin aqoon leh wax badanna og halkana duruufta ayaa ay dhigtay waxaan see ahay qof waxa fiicanna muujiya wixii xunna qariya oo dadka sirahooda xifdiya markay gabdhihii maqleen hadalkii wiilka iyo qaabka uu u qanciyay wiilku ayay ka ogolaadeen inuu la joogo laakiin hal shardi ayay ku xidheen kaasoo ah hana weydiinin waxaan ku qusaynin haddii kale waxaad la kulmi doontaa waxaan ku raaligelinin wiilkii wuu ogolaaday hadalkooda markaas ayay gabadhii koowaad istaagtay wiilkiina gacanta soo qabatay wayna waday iyada oo geysay musqusha kadibna waxay ku amartay inuu soo qubaysto oo soo nadiifiyo waxayna siisay wax kasta oo uu baahnaa markii uu soo qubaystay ayuu gabdhihii u yimid iyaga oo qadadii diyaariyey si wada jirahna way u qadeeyeen markii la qadeeyey ayay tii saddexaad soo qabatay dhalo khamri ah oo meesha taalay waxayna gabdhihii kale mid kasta ugu shubtay koob sidoo kalena wiilkii koob ayay isna ugu shubtay markii cabbeen ee khamrigii caqligoodii gaadhay ee ay sarkhaameen ayay gabdhihii wiilkii u soo dhowaadeen isaguna wuxuu isu malaynayay inuu riyoonaayo waanu aamini waayey inuu gurigan qasriga ah 3 gabdhood ee sidan oo dhan u quruxda badan uu keligii la joogo wax yar kadib waxaa istaagtay gabadhii weynayd waxayna iska wada siibtay dharkii ay gashaneed iyada oo barkad lagu dabaasho oo meesha ku taallay gashay oo isku tuurtay labadii gabdhood ee kale iyo ninkiiba barkadii ayay ku dabaasheen markii qubayskii iyo dabaashii dhammaysteen ayay ka soo baxeen maalinkii oo dhanna waxa ay ku qaateen cunto cunis iyo khamri cabis ilaa laga gaadhay habeenkii iyaga oo faraxsan oo meeshii fadhiya ayaa albaabkii la soo garaacay markaas ayay gabdhihii is eegeegeen iyagoo isweydiinaya qofka saacaddan albaabka gurigooda soo garaacay kadibna middood ayaa kacday si ay u fiiriso qofka albaabka soo garaacay kadibna wax yar kadib ayay soo noqotay waxayna gabdhihii kale ku tidhi waxa iridda taagan 3 nin oo cajam ah saboolnimo ba'anina ay ka muuqato sidoo kale way wada madaxyaxiiran yihiin dhammaantood saddexdoodubana isha bidix ayay la'yihiin waana dad qariib ah oo waddanka ku cusub waxayna ka yimaadeen dhulka roomaanka mid kasta oo iyaga ka mid ahna muuqaalkiisa haddaad aragto waad ku qoslaysaa waxayna rabaan caawa inaynu marti soorno imiyaynu marti soornaa labadii gabdhood ee kale ayaa yidhi haye soo daaha soo galaane una sheeg shardiga ah inaysan ina weydiinin waxaan qusaynin haddii kale ay maqli doonaan waxaanay ka raalli ahayn sidii ayaana nimankii saboolka ah guriga ku soo galeen markay soo galeen ayay arkeen xamaaligii oo meesha fadhiya sidoo kalena sarkhaansan markii hore waxay moodayeen mas-uulka meesha laakiin gadaal ayay ka ogaadeen inuu iyaga la mid yahay waxa iyagoo faqiya markaa isku yidhaahdeen waar kanina show waa faqiir kaloo ina la mid ah markaas ayuu xamaaliga inta madaxa kor u soo qaaday nimankii ku yidhi qunyar meesha iska fadhiya mise waxa ay loodeen shuruudaad halkan ku joogteen markaas ayay gabdhihii qosleen kadib markii cabbaar la joogay ee la wada sheekaystay ayuu xamaaligii nimankii saboolka ahaa ku yidhi haddaad heesaha wax ka taqaanaan caawa wax noogu dhufta waxa ay gudagaleen inay heesaan halka gabdhihiina ay jaas u kaceen habeenkaas waxaa sidii caadada ahayd magaalada wareegayay amiirkii mu'miniinta ee haaruun ar-rashiid iyo wasiirkiisii jacfar iyo mansuur oo wasiir jacfar gacanyaro u ahaa waxaana haaruun rashiid caado u ahayd intuu qof shacaba iska dhigo inuu magaalooyinka ku wareego si uu ula socdo waxa magaalada ka socda iyo dhaqdhaqaaqeedaba kadibna waxa ay soo agmareen gurigii ay gabdhuhu deganaayeen kadibna waxa ay maqleen sanqadhii heesta iyo ciyaarta ee guriga ka soo baxaysay markaas ayuu amiirkii mu'miniintu u baaqay jacfar si ay guriga caawa u galaan una ogaadaan waxa ka socda kadib albaabkii ayay soo garaaceen iyagoo iska dhigaya inay yihiin niman tujaar ah oo gobolku meesha ugu dhacay markaas ayaa albaabkii laga furay kadibna waa la soo geliyey iyadoo sharad looga dhigay inaysan ka hadlin waxaan qusaynin haddii kale ay maqli doonaan waxaanay raalli ka ahayn sidii ayaanay guriga ku soo galeen gabdhihii ayaa soo dhoweeyey waxayna u keeneen waxay u baahnaayeen in cunno iyo cabitaanba lahaa markuu haaruun rashiid arkay muuqaalka nimankii saboolka ahaa iyo quruxda uu gabdhaha alla siiyey ayuu la yaabay kadibna waxaa loo keenay koob khamri ah balse wuu ka cudur daartay oo ma uusan cabbin markaas ayay gabadhii yareed u soo hagaajisay cabbitaan si gaar ah ay u samaysay maadaama uusan khamriga cabbin wuuna uga mahad celiyey cabbaar markii la joogay ayay gabadhii weyneyd istaagtay waxayna xamaaligii ku tidhi kaalay oo caawi waxay furtay qol meesha ku yaalay oo maanta oo dhan xidhnaa xamaalkii waxa uu arkay 2 ay oo aad u waaweyn oo qolka ku jiray doonfaarna aad u malayso sida ay u weyn yihiin awgeed
markaas ayay xamaaligii ku tiri ii qabo kadibna wuu qabtay waanu soo qaaday isaga oo keenay hoolkii guriga gabadhii labaad ayaa istaagtay oo eygii madaxa qabatay halka tii saddexaadna inta ay ul soo qaadatay ay eygii garaacday weliba si aad u xun ay u garaacday iyadoo eygiina uu qaylinayo markaas ayay haddana inta ay qabatay laabta gelisay ilmadiina ka tirtay madaxana ka dhunkatay kadibna xamaalkii ayay ku tiri orod oo eygan qaad meeshiisii ku celi oo eyga kale ii keen imaamkii haaruun rashiid arrintaas aad ayuu uga xumaaday waxa uuna u baaqay wasiirkiisii jacfar isaga oo kula foqay aynu gabdhaha ka qabanna eydan ay garaacayaan waa aynu weydiino waxa ay sidan u samaynayaan jacfar waxa uu haaruun rashiid ku yidhi amiirulmu'miniinow ha ilaawin inay shuruud inagu xidheen bal aynu xoogaa sugno wax kasta iyaga si kala caddaanaya markaas ay gabadhii saddexaad inta istaagtay oo sariirtii quruxda badneed ku fadhiisatay ayay ku tiri labadii gabdhood ee kale waxaad haysaan soo daaya tii koowaad sariirta ayay la fuushay oo madaxa ayay qabatay halka tii labaadna ay tirisay tix gabay ah oo calaacal iyo baroordiiq la circiiraya markaas ayay dharka iska jeexjeexday dhulkana ku dhacday iyada oo suuxsan khaliifkana waxa uu arkay jidhkeeda oo uu ka muuqdo garaac iyo raad ul aad ayaanu ula yaabay kadibna waxaa kacday midii labaad oo biyo ku shubtay gabadhii suuxsanayd waxaana u keentay dhar oo ay u gelisay gabadhii xigtay ayaa kacday oo iyaduna sidii tii hore tix gabay ah oo baroordiiq ah tirisay markii tixdii gabay ahayd dhammaysay ayay iyaduna sidii hore oo kale dharkii iska jeexjeexday dhulkana ku dhacday mise iyadana waxaa jidhkeeda ka muuqda raad ul sidii tii hore oo kale inta biyaa lagu shubay ayaa iyadana dhar loo geliyey kadibna waxaa istaagtay midii saddexaad oo iyaduna tix kale oo calaacal ah tirisay markaas ayay iyadayna dharkii iska jeexjeexday oo dhulka ku dhacday kadibna raadkii ushu jidhkeeda ayuu sidii kuwii hore oo kale uga muuqday intay waxaasoo dhan dhacayaanna khaliifkii haaruun rashiid iyo dhammaan nimankii kale way daawanayaan mana weydiin karayaan siday wax u jiraan saddexdii nin ee saboolka ahaa ayaa yidhi waraadhe maxaa gurigeenna soo geliyey wallaahi qaab aanu hadda u seexanno ma garanaynaba waxaan dhacayana ma aha wax indhaha laga laaban karo khaliifkii ayaa dhankooda soo jaleecay oo weydiiyey oo idinku guriga miyaydaan deganayn miya waxay ugu jawaabeen maya gurigan caawa ayaa noogu horraysaba waxaan ugu nimi ninkan xamaalka ah ninkii xamaalka ahaa ayaa isaguna yidhi waar aniga meeshan caawa igu horraysa markaas ayay raggii iskula fiqeen aynu weydiino siday wax u jiraan waxaynu nahay 7 nin iyaguna waa 3 dumar ah oo keliya haddii ay noo jawaabi waayaanna qasab ayaynu kaga hadalsiinaynaa waana isku raacin arrinkaa markaas ayuu jacfar markale yidhi aniga ra'yigan ilama habboona gabdhahani shuruud ayay nagu xidheen waynayna soo dhoweeyeen marka inaynu shuruudda ka baxno ma aha waagiina wax saacad ka yar ayaa ka hadhay ee naga daaya markuu sidaas leeyahay waxa uu baqaayay khaliifka muslimiinta wuxuuna hoos ugu sheegay khaliifkii ha iska waalin subaxii wax yar ayaa ka dhiman dadkana beri ayaan hortaada wada keenayaa markaasaynu sidan doon u waraysanaynaay balse khaliifku ka ra'yi doonaa waxa aanu ku yidhi iguma hadhin dulqaad aan subaxa ku sugo ee iminka ayaan weydiinaya waxa haddana la isku qabtay mar kale yaa weydiinaya waxa markii hore la yidhi xamaaligu ha weydiiyo ilaa isagaa guriga ugu soo horreeyey oo lagu yimi iyaga oo meeshii ku shiraaya ayaa waxaa u yimi gabdhihii waxayna ku yidhaaheen maxaad ka hadlaysaan maxaad ku faqaysaan xamaaligii ayaa yidhi ilaahay baad ku dhaariyey muxuu yahay xaalka ciidan aad garaacaysaan kadibna aad dhunkanaysaan iyo garaaca jidhkiinna ka muuqda iyo waxa gurigan ka socdoo dhan markaas ay gabadhii kuwii kalena ku tiri idinkuna ninkan xamaalka ah miyaad la qabtaan isweydiinta markaasay dhammaantood marka laga reebo jacfar ay yidhaahdeen haa waannu la qabnaa ra'yigaase noo sheega markay gabdhihii hadalkoodii maqleen ayay yidhaahdeen wallaahi waadna dhibteen shuruud ayaannu idinku xidhnay ima waxa idinka dartay martisoorkii aanu idiin fidinay iyo inaannu gurigayga idiin soo gelinnay cuntadeedana idin siinay dembiga idinku ma lihidin ee waxaa leh qofkii idin soo dhowaystay kolkaas intay xanaaqeen lugaha dhulka ku garaaceen 3 jeer mise waxaa furmay albaab dhulka hoostiisa ku yaalay waxaana ka soo baxay 7 nin oo addoom ah oo aad u xoog waaweyn waxayna wateen seefo af leh waxay gabdhihii ku amreen addoommadii in nimankan ay xirxidhaan kadibna ay kurka ka wada gooyaan markay shakadu halkaa maraysay ayay Shahrazaad dareentay in subaxii la gaadhay markaasay aamustay oo joojisay hadalkii u bannaanaa halkaas ayaynu ku soo koobaynaa xalqadina maanta inta xalqadan xaqad lamid aynu ku kulmi doono waxaad kaga tegayaa nabaday